kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii lixaad ee sheekadii ma waxaan u dhintay jacaylkii nagaad. haddaba daawadayaal intaanan qaybta lixaad ee sheekada gudagelin aan bal hal iyo laba ka xuso sidaad inooga barateen falcelinta sheekada ee daawadayaasheenna inagoo markasta idinkaga mahad celinayna sidaad inoola socotaan iyo fariimaha hambalyada ah ee aad inoo soo diraysaan. al-Soomaal ayaa yiri shaacir saaxiib si fiican ayaad inoogu daadihisaa sheekada. waris hore ayaa iyana tiri aayaha nolosha runtii waxaad tihiin wehelka bulshada waana qisada keliya ee aan ku tixanahay. mooha cabdi oo ku soo biiray ayaa isna yiri maanta ayaan ku soo biiray shanta qayb ee sheekadana waan wada daawaday. nimco maxamuud oo soo gabagabaysayna waxay tiri aayaha nolosha aad baad u mahadsan tihiin waxaad inala wadaagtaan markasta qisooyin jacayl oo aad u macaan. haddaba daawadayaal haddaan sii anbaqaado sheekada qaybtii shanaad ee sheekadu waxay inoo maraysay cabdulaahi oo qorshihiisii martiqaadkii maalinta jacayl ku fashilmay talana ay ka cayn wareegtay isagoo ku calaacalay erayo ay ka mid yihiin laan yahay midhaha laalaadisee liiliicaysaay liban yahay dartaa waxaan ahay nin lumay intuu leeca koray laamaha jacayl ay la soo jabeen. halkaa markay maraysay ayuu cabdulaahi fikir dheer iyo go'aano isdiidan oo midba kan kale ka hor imaanayay wuxuu jeebka kala soo baxay tab kale markii qorshihiisii maalintii jacayl ku fashilmay. maxaad inanta warqad ugu qori weysay horta ayuu is yidhi. qoraal dheer oo uu gacanta ku qoray ayuu wixii niyadiisa ku jiray wixii shiday iyo hamigiisii oo dhan ku taxay. habeen ay israaceen ayuuna khaanada baabuurkeeda warqadii oo gal ku jirta dalaq ku siiyey. waa tabintii shaacir. haddaba daawadayaal si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha ku xirnaaw oo subscribe saar beejkan cusub ee aayaha nolosha TV inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka go'in xasuustaada adigoo fariin inoo soo diraya. markuu gurigiisii tegay ayuu telefoon u diray nagaad oo warqadii akhriso ku yidhi hiif iyo haaraan baana meesha ka raacay waxaas oo kale maalin dambe ha ila iman ayay ku tidhi. leave me alone ayay afqalaad ugu sheegtay. anigu wax kaasi ah garan maayo ayay tidhi. sacsac inuu yahay buu istusay. doqonnimo inay hayso ayuu u qaatay. dhowr maalmood ayaana dareenkii jabka iyo dhibaatadii meeshaas ka raacday niyadiisa ku duubnayd. cabdulaahi cid uu u eersada ayuu u baahday sidii awalba dhici jirtay. filsan ayaa dugsi uu ku hirto u noqotay. fariin kooban oo qoraal ah ayuu taleefankeedii gacanta ku diray waxaana ka mid ahaa weedhihii uu u qoray wax aad qof u hurto waxaa ugu qaalisan jacayl aad naftiisa u qaaddo. haddii qofka aad jacaylkaas u qaaddo qalbigaaga raaciso ee dunida uuman keligii kala soo dhex baxdaa uu kugu xidho albaabka maxaad yeeli lahayd? ma dowbaa ma arrin la isu quudhabaa? degdeg ayay filsan fariintii uga soo jawaabtay. ma iyadiibaa ma inantii yareed baa qalbigaaga walaal sidaa ugu ciyaaraysa? ha werwerin ha islurin dunidu maanta maaha. dunidu wixii nool way taagnaanayaan. qof kale oo kuu macaan kuu roon kuu qeyr badan ayaad heli doontaa walaal ayay ugu caqli celisa filsan cabdulaahi. oo ma nin waxaasi ka degayaanba wuu arkaa in nagaad aysan rabin haddana si uunbuu qalbigiisu rajo aan soo muuqan isu tusayaa. maanta marka aad qadada u soo baxdo ma ii imaan kartaa ayay filsan ku tidhi cabdulaahi. arrinkaas wax uu ka jeclaa ma jirin. qof uu ku hor ooyo oo arrinkiisa u garaabi kara ayuu saacaddaas u baahnaa. waxa ayna filsan ku ballameen meel goobta ay ka shaqayso u dhow oo suuqa bartankiisa ah. markii uu meeshii gaadhay ayuu is yidhi bal taleefankeedii gacanta garaac oo bal hubi halka ay marayso mise waaba tan hortiisa taagan. salaam buu ku boobay oo wuu ku dul calaacalay
wehel buu u baahnaa cid u garawda oo xitaa haddii uu nagaad ka gardaran yahay oo wax aanay doonayn ku qasbaya ku tidhaahda adiga ayaa garta leh ayuu u baahnaa cid niyadiisa qulubsan iyo maankiisa isku qubtay ee tashuush ku galay maaweelisa ayuu u baahnaa ciddaas ayayna filsan u ahayd hodheel wax laga cun ayay dalaq yidhaahdeen halkaas sii fadhiiso oo maxaan kuu soo qabtaa ayay filsan cabdulaahi ku tidhi shaah uun baan doonayaa ayuu ku yidhi ma hubtaa inaadan wax kale oo raashin ah aadan rabin ayay filsan ku tidhi cabdulaahi haa ayuu ugu jawaabay filsan ayaa cabbaar kula murantay wax cun haddii kale waad dhimanaysaa dhimashada ayaa la ii qaatay ayuu cabdulaahi si murugo leh ugu jawaabay hahaligi naftaada ayay si cadho leh ugu tidhi oo intay ku soo noqotay sidii ilmo yar oo ay dhashay ayay canaan iyo waano kala dul dhacday xanuunkii nafsiga ahaa ee hayay cabdulaahi ayaaba hadalladii filsan raacay naxariis qabow ayaa ku soo degtay cuntadii markay soo qabsatay isagana shaahii u keentay ayay hortiisa soo fadhiisatay oo intay kursigii aad ugu soo dhawaysatay hoos ula xanshaashaqday filsan oo ahayd gabar ay nagaad aad isku yaqaanaan habdhaqankeeda hasaawana aad uga warhaysay ayaa markay aragtay xaaladuu cabdulaahi ku sugan yahay iyo marxaladda adag ee uu ku jiro waxa ay rabtaa markaan inay runta ku caddayso una sheegta cabdulaahi in nagaad howlo badan tahay iyadoo marar badan ka warwareegtay cabsi ay ka qabtay in cabdulaahi niyadda ka jabo aawadeed laakiin runtu ragga way ka naxisaa uun mooye miyay wax u dhintaa sida waxyaa jiirka wadnahayo beerkiyo halbowlaa iswaraabshan u wadaagi jacayl markuu kaaga waraabshay u wadeeca kutaabshay ina kaaga wareego halka kaaga dhaqaaqo marka kaaga waraabshay u wadeeca kutaabshay ina kaaga wareego halka kaaga dhaqaaqo inaga isku wanayne maxaad iiga wareegtay 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 ma waxaan u dhintay jacaylkii nagaad waa sheeko jacayl oo qalbigaaga dhaqaajinaysa waa tabintii nuur shariif shaacir waxaana qalinka u qaatay abwaan cabdulaahi cawad haddaba si aad uga bogato waayihii jacayl ee nagaad iyo dhibanahan uu caalamku ka heshay sabscribe saar janaalkeena aayaha nolosha tv lana soco habeen kasta oo axad ah qayb ka mida sheekada inaga isku wanayne maxaad iiga wareegtay inaga isku wanayne maxaad iiga wareegtay